banaanbaxan saaka ka soconaya magaalada muqdisho waxa uu yahay mid lagu taageerayo go'aanka madaxweynaha dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee ku aadan matalaadda aqalka sare ee gobolka Banaadir shacabka ku dhaqan 17 degmo ee muqdisho ayaa saaka qayb badan oo ka mid ah magaalada ka sameeyay banaanbax ay ku taageerayaan madaxweynaha Soomaaliya isla markaana ay ku dalbanayaan in la muujiyo maqaamka dawladda gobolka Banaadir banaanbaxan ayaa qayb ka banaanbax ay shacabka magaalada muqdisho ku dalbanayaan in gobolka Banaadir aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya laga siiyo matalaadda uu ku leeyahay allow dalladii adduunka ku darajade dhawaaqaaga dhulmaaraya dhagaysi wacan allow si wanaagsan howshina ay ku fusho nima ilaahay karaamay laguma karo qaar iyo farmaajo iyo dadka daba joogo iyo dadka taacsan waxa u rajaynayaa guul barwaaqo bashbash waxaan u soo baxnay maqaamka muqdisho oo maantay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaanku ay go'aan ku gaareen inay muqdisho maqaamkeedii ay siiyaan waxaan leeyahay hambaliyo waxaan leeyahay jiro jooga waxaan leeyahay weligiin hoggaanka haya waxaan halkaan aan ayidaynaa go'aankii madaxweynaha shalay oo ku ayiday oo ku codsaday baarlamaanka inuu maqaam loo dhiso gobolka Banaadir madaxweyne go'aankaada ayaan garab taagannahay madaxweyne waxaad noo caddaysay in xuduntaada ku duugan tahay gobolka Banaadir madaxweyne kor Allah ka dhigo naafada gobolka Banaadir waxa weeye dadka nolosha iyo nabadda iyo sharciga u baahan door muuqda ayuu qaatay hadday ahaan lahayd waxaan qabadkiisii muddadii uu joogay iyo meesha maantay oo codsigiisa waqtigii ku habboonaa oo meel fagaaraha uga jeediyey golaha baarlamaanka labada qab dadka magaalada muqdisho iyo bulshada gobolka Banaadir ayagoo ka turjumaya dareenkooda ku aadan taageerada madaxweynaha ee codsiga uu jeediyay golaha baarlamaanka ayay maanta isugu soo baxeen dhowr goobood 4 goobood oo waaweyn oo ay iyagu go'aansadeen inay ku muujiyaan taageeradooda mudanayaal iyo marwooyin waan idinkaga mahad celinaynaa sida aad u muujinaysaan shucuurtiinna sida ay idin nuuxisay ay idin dhaqaajisay dareenkiinna u kicisay codsigii madaxweynuhu u jeediyey golayaasha baarlamaanka arrintaas oo aan filayo in jawaab degdeg ah oo dhammaan bulshada gobolka Banaadir ay ku farxaan inay ka imaan doonto waan hubaa golayaasha baarlamaanku ma aha dameer laawayaal waa dad garanaya waxa ay ugu fadhido magaalada muqdisho malaayiinta ku nool halkan iyo sida ay ugu heegan yihiin garab istaagga dawladdooda baarlamaankooda amniga ka shaqaynta danta guud mar haddii ay iyagoo markhaati ka yihiin doorka aad ku leedihiin dawladnimada Soomaaliya dhidhiba u aasideeda